بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. odayaasha qiimaha leh kusoo dhawaada mar kale shabakada At-Tawba ee casharkeennii shanaad ee fannu tacaamuli maca al-atfaal oo aynu uga hadlaynay tarbiyada caruurta iyo barbaarinta wanaagsan. casharkan maanta waxaynu ku qaadanaynaa haddii Ilaahay qadaro marxala min ahami al-maraaxil fi at-tarbiya, marxalad kamida maraaxisha tarbiyada kuwada ugu muhiimsan oo ah marxalatul xamli ama ilmuhu inta ay uurka ku jiraan marka ay uurka galayaan laga bilaabo ilaa ay ka dhalanayaan inta u dhaxaysa ah. marxaladaas cinaayada iyo tarbiyada iyo juhdiga ay u baahan yihiin ilmuhu ay labada waalid xaq ugu leeyihiin, oo haddii juhdiga iyo tarbiyada marka la siiyo koriinadooda dambe ilmaha iyo tarbiyadooda dambe ay fududaan doonto. haddii ay xilligaa waayaan juhdiga iyo cinaayada marka ay u baahan yihiin tarbiyada ay u baahan yihiinna oo marka ilmahaas aan dadaal iyo maaragtaan wax xoog ah la iska saarin xilliga ay uurka ku jiraan oo canuga uu janiinka ama uurka jirka uu yahay, iyana saameyn xun ku yeelan doonta noloshooda dambe. marxaladan waxaa ka horeysay marxalatu qabla al-xamli oo casharadii hore kusoo qaadanay oo aynu ku sheegnay xuquuqda iyo xaqa ilmuhu ay ku leeyihiin labada waalid intaysan dhalan ka hor, intaad dhalinyar tahay oo xataa aanad guursan ilmaha aad dhali doonta xaqa ay kugu leeyihiin ayaan casharkan kuwii ka horreeyay aan kusoo qaadanay. waxaynu ku sheegnay laba xaq oo muhiim ah oo xilliga inta aad dhalinyar tahay ilmahaaga inaad u oofido ay qasab tahay oo waajib kugu tahay, oo ah midda ugu horeysa haddii aad doonaysid ilmo wanaagsan inaad aad ilmahaagu ilmo wanaagsan noqdaan, wanaagga cid ay kaga dayanayaan oo inuu ku tarbiyeeyo oo ku barbaariyo la doonayo adiga waaye adigu inaad noqoto horta qofka ugu horeysa ee wanaagsan, inaad markaa adigu aad noqoto qof wanaagsan inaad ku dadaasho intaad dhalinyar tahay. waa qodobka koowaad. qodobka labaadna waxaynu ku sheegnay xusnul ikhtiyaar, qofka aad dooranayso ilmahaaga inaad ku caawiso, oo ilmahaagu markaad qof dooranayso qofka aad hooyada uga dhigayso ama aad aabaha uga dhigayso inaad ka fiirsato xaqi kugu leeyihiin, oo iyana qofka aad dooranaysaa ay noqoto qof wanaagsan oo tarbiyada markaa kaalin muhiim ka qaadan karta. inagoo soo qaadanay qofka aad dooranayso meelaha ay tahay inaad ka fiiriso. marka marxaladan hadda aynu ku jirno marxalatul xamli runtii waa min ahami al-maraaxil fi at-tarbiya, waa marxaladaha ugu muhiimsan tarbiyada oo ilmuhu intay uurka ku jiraan dadaalka iyo juhdiga iyo cinaayada ay u baahan yihiin haddii xilligaas la siiyo waxaa adduunka iman doona oo dhalan doona ilmo tawjiihsan oo wanaaggii aad la rabtay aad u soo jihaysay oo waddadii aad la rabtay ilmuhu inay maraan aad u soo jihaysay. marxaladan runtii waa marxaladda ilmaha lagu jiheeyo oo wanaagga aad la rabto ilmaha lagu jiheeyo oo lagu tawjiihiyo. haddii markaas aan marxaladan aanan ihtimaam badan siino aanan iska dayacno, waxaan arki doonaa ilmaheenii oo aan maaragtaanay tarbiyad aanan ku karayn, oo aanan si kasta haddaan ugu dadaalno aanan tarbiyin karin oo tarbiyadoodiiba ay adkaato, sababtoo ah xilligii ay ugu munaasabsanayd in lasoo bilaabo tarbiyada ayaan lasoo bilaabin. intaana badan ihtimaam ma siino marxaladan, sababtuna waa inaanan dee kuba baraarugsanayn cilaaqaadka ilmaha uurka ku jira ee uurjiifka iyo adduunkan banaanka ah uu la yeelan karo, ama adduunkan banaanka ilmaha uurka ku jira cilaaqaadka ay la leeyihiin inaanan intaana badan ba aanan ku baraarugsanayn u badan tahay. waana facts, waa xaqiiq adduunkan daraasaad cilmiyeysan oo daraasaad cilmiyada la sameeyay lagu ogaaday in ilmaha uurka ku jira ee adduunkan banaanka ah ay cilaaqaad la leeyihiin. idan waxa adduunka banaanka ka socda ilmihii uu saameynayaa adduunkan banaanka waxa ilmaha uga gudbaya inay ahaadaan wax hagaagsan oo noloshooda dhisi kara oo noloshooda dambe anfici kara inay ahaadaan lagu dadaala ilmuhu intay uurka ku jiraan. oo inta badan hooyadu waxa ilmaha hooyada uga gudbaya hooyada ilmaha ay ku talaalan yihiin waa xubin jirka jirkeeda cad kamid ah waaye. marka hooyadaas inay ilmaha u gudbiso wax maaragtaan ilmaha mustaqbalkooda anfacayo, caafimaadkooda iyo shakhsiyadoodaba anfacayo. inta badan dhankan looga xiriirsan yahay muddaaya wadamada caalamka qaar waxaa jira ilmaha uurjiifka ah ihtimaam badan siiya. wadamadan Korea la yiraahdo oo kale waxaa la yiraahdaa hooyooyinka markay ogaadaan inay uur leeyihiin, islaamuhu ay ogaadaan inay uur leeyihiin oo uurka xoogaa 4 bilood 5 bilood meelahaas uu gaaro, waxay sameeyaan mubaarasaad iyo dadaalo ay marka hore sameeyaan caadooyinkooda iyo dhaqankooda ay caadiga u leeyihiin bay bedelaan, cuntadooda qaabkay wax u cunayaan qaabkay u dhaqmayaan bay bedelaan, oo waxay sameeyaan dhaqamo, waxay la yimaadaan dhaqamo ay ugu talagaleen markaa ilmaha inay ku hagaan oo ilmaha ku tarbiyaan ku tawjiihiyaan. مثلا يوغا با waxa la yiraahdo sameeyaan jimicsiga yoogaha la yiraahdo
exercise badan bay sameeyaan, waxay sameeyaan qisas gaara, buugaag gaara bay akhriyaan, ilmihii way la sheekaystaan, waa ay taataabtaan oo ay ilmihii la sheekaystaan. yacni waxay sameeyaan waxyaabo ay dhammaantood isku wada caado oo dhammaantood ay wada sameeyaan. marka dadaaladaas iyo caadooyinkaas ay sameynayaan oo dee dhammaantoodna caado u ah, waa dadaallo ay aaminsan yihiin inay leeyihiin ilmihii bay saameynayaan, ilmaha caloosha ku jira loogu talagalay in iyaga lagu tawjiihiyo oo lagu tarbiyeeyo oo shakhsiyadooda wax anfacaya oo dakaa'ooda iyo caqligooda ilmihii dhisaya. dadaalada marka xilligan ilmaha in loo sameeyo loo baahan yahay iyo tallaabooyinka xilligan in la qaado ay tahay laba dhinac bay saameynayaan, oo dhan caafimaad iyo dhanka shakhsiyaddii ilmaha iyo caqligoodii iyo garaadkoodii wax saameynaya iyo wax caafimaadkoodii saameynaya. yacni dhanka caafimaadka iyo kale de waa iska waxaan isleeyahay anigu ahel uma ihi oo dhaqaatiirta dadka nutritionka bartaa yaqaano waxa hooyadu ay maadaama ilmuhu waxa hooyadu ay isticmaashay cunto ay ilmihii u gudbayaan, waxa hooyada nafaqada u noqon kara cuntooyinka yacni hooyooyinka uur kale loogu talagalay. marka dhankaas waa dhanka caafimaadka ilmaha in laga taxadaro, waxa caafimaadkooda u daran laga ilaaliyo, waxa u roonna ilmaha loo sameeyo oo qaabka ilmaha hooyada u jiifanaysa cuntadii cunaysa waxa laga taxadaro. laakiin waxaan xoogga saarayaa waa dhanka shakhsiyadda ilmaha iyo caqligooda iyo garaadkooda maxaa dhisaya oo xilligan in loo sameeyo ay tahay, maxaase caqligoodii garaadkoodii shakhsiyaddooda waxyeelo u ah xilliga in laga ilaaliyo ay tahay. khadawaadka iyo tallaabooyinka ay tahay inaynu qaadno si shakhsiyadda iyo caqliga iyo garashada ilmaha aan u dhisno, maadaama aan ilmo wanaagsan doonayno. waxay runtii bilowdaan habeenka ugu horeeya ee labada qofood iscalfada ay isu imanayaan. ilmaha wanaagsan sidaynu sheegno hore u sheegnay ilaahay baa bixiya subxaanahu wa tacaala. wanaagga aan doonayno iyo ilmahaba ilaahay baa bixiya. sida ilaahay uu raaliga ka yahay ee uu ilmaha ku bixiyo, sunnada ilaahay uu jideeyey uu raaliga ka yahay inaan ku raadino way ilmo. wado kale oo lagu helayo ilmo wanaagsan ma jirto. sida aan ku helayno waa sidii isagu uu raaliga ka yahay ee uu jideeyey. habeenka labada qofood ay isu imanayaan ee labada qofood ee iscalfaday inta guurka dee welimadii iyo dad laga soo farxiyey maantoo laysu soo maaragtaanay reerihii lasoo qanciyey, labada qofood markay isu soo bannaanaadaan ee ay guri isu soo galaan, labadaas qofood intaanay hawl kala qaban saddex qodob waa inay sameeyaan. saddexdan qodob waa sunno nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay iyo saxaabadii, oo runtii ah wadada kaliya ilmaha wanaagsan aan doonayno lagu heli karo. wado kasta ilmo wanaagsan kuma heli karno. ilmaha barakaysan ee wanaagsan ee caqliga badan ee maaragtaanay ibliiska iyo wax allaalay wixii wax fasaadiyo dhanba ka nabad gala waxaan ku heli karnaa inagoo saddexdan qodob sida ay tahay u sameyno. waxaa la yiraahdaa Soomaali waxay yiraahdaan xilligaan yacni waxaan lagama gaaraba, yacni habeenkaas waa la isku duufaa la yiri sidii laba dameer. haddaad adinku aad adkaysa weydaan habeenkaas sidii laba dameer isku duuftaan, ha la yaabinina idinkuna inaad ilmo laba dameer camal aad dhashaan. yacni dameer waxaan uga jeedaa ilmo yacni macangag ah oo madax adag oo kakan oo aan dil iyo maaragtaan Soomaalidu carabtu waxay dhahaan alximaaru laa yamshi ilaa bilcasa. dameerku yacni waxaan ulahayn ma yaqaano, ma socdo oo ma dhaqaaqayo inaad ulaysa maahan. luqadda uu garanayo ulbis wey, dameer wax kale ma yaqaano. ilmo in la dilo oo la ulaayo oo la ciqaabo oo la xabiso oo dhaqan celin la geeyo maahan, aan si kale yacni aan isku tawjiihi karin ayaa laga yaabaa inay ilmahaagi noqdaan. sababtuna waa idinka habeenkii ugu horreeyay sunnadii la rabay in maaragtaan ilmaha lagu tabco. adinkaan ilmaha wanaagsan ee adoonaysan sunnadii la rabay in lagu tabco adinkaan sameynba. adinka habeenkii ugu horreeyay sidii laba dameer isku duufay, idinkuna inaad dameero dhaqan yacni ilmo dhaqan dameeraad le aad dhashaan la yaab ma laha, la yaabanina. idan saddexdan qodob qofkii sameeya ama labadii qofood ee markii ay maaragtaan intaanay isu iman ka hor saddexdan qodob sameeya biidni illaahi albaari, waxaa la rajeynayaa ilmaha wanaagsan ay doonayaan inay helaan. qodobka ugu horeeya labada qofood ee isu soo calfaday ee isu soo xalaaleystay, intaadnaan akhi fillah wa ukhti fillah aadnaan hawl kala guda galin, wax kale intaadnaan isu sheegin. waad iska sheekaysan kartaanoo bal inaad isxog waraysataan, maadaama aad si xalaal ah aad caawa isugu kiin horeyso waad isxog waraysan kartaan. laakiin tallaab la qaado waxaa ugu horeysa oo sunno ah inaad labadiinu intaad soo weysaysataan laba ragcoo sunna dukataan, oo weliba aad wiilka ama maaragtaan ninku uu bixiyo oo uu imaam noqdo, la isku daba dukado. yacni in la kala dukado way dhici kartaa, laakiin in la isku daba dukado aa fiican. in maaragtaan la isku daba dukado oo labada ragcoo sunna la dukado.
markii maaragtaani ay labada ragco ay dhamaatana ilaahay aad wada barisaan si wada jir ah aad ilaahay gacmaha ugu taagataan si maaragtaani biniyatin saalixatin wa bithiqatin kaamilatin ilaahay subxaanahu wa tacaala kalsooni buuxda aad ku qabtaan inaanu ducadiina dayici doonin niyad wanaagsanna aad ilaahay ku barisaan ilmaha aad doonaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiina gacmihiina ma fiirinayo qalbigiina fiirinaya ilmaha aad doonaysaan qoyska aad doonaysaan quruxda aad rabtaan in noloshan aad dhisaydaan ay ku socoto inaad horta kow ilaahay weydiisataan subxaanahu wa tacaala sida aad rabtaan inaad u noolaataan iyo quruxda aad qoyskiina la rabtaan iyo ilmihiina wanaagga aad la rabtaan waxaasoo dhan habeenkaas ilaahay weydiisa subxaanahu wa tacaala nolol cusub aad dhisaydaan barako iyo khayr iyo duco ilaahay ha lagu dhiso subxaanahu wa tacaala haddii aad labada ragco sunnaad dukataan oo aad sidaa wada jirka ee tawfiiqda ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda iyo midnimada waa jecel yahay laba qofood oo isu soo xalaaleysatay oo maaragtaan isku soo fahantay oo isku soo waafaqday guur inay isxalaaleystaan isku waafaqday inay laba ragco sunno dukada isku daba dukadaan isku waafaqay ilaahay subxaanahu wa tacaala hal maqsad iyo hal ujeedo ay wada leeyihiin inay ilaahay weydiistaan gacmaha u wada taago isku waafaqda hal qofna uu duceynayo oo hal qof laga wada aaminsanay ilaahay muwaafaqada iyo tawfiiqda waa jecel yahay tawfiiqdu waa sifo casiis ah waa sifo aad u qaali ah oo aan maaragtaanay diinta xataa kuma badna kelmadda la yidhaha tawfiiq qur-aanka oo kale culimmadu waxay dhahaan 3 mar bay ku soo aroortay qur-aanka dhanba kelmadda tawfiiq 3 meelood bay uga soo aroortay la yidhaha 2 aayadood oo fi suurat an-nisaa ah in yurida islaahan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaahan yuwaffiq Allahu baynahuma oo maaragtaanay weliba qosayda qadiidan oo kale yani arrimaha qoyska qosayda iyo aayadii kale fakayfa idha asabatu musibatu bima qaddamat aydihim thumma jaa'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqan iyo fi hal aayado fi surati hud wama tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu ilayhi marka saddexdaas aayadood bay quraanka dhanba ay kelmadda tawfiiq soo aroortay taas waxay macnaheedu waxay tahay dhahan culimadu sida ay quraanka ugu yartahay ayay nolosha bini aadamkana ugu yartahay dadku way ku duceystaan bilaa tawfiiqtana waafaj yani inta iswaafaqda oo hal ujeedo iyo hal maqsad iyo hal dan isku waafaqda ilaahayna wada weydiisata hal wadana u wada martaaba yarba idan idinku muwaafaqadaas aad habeenkaas sameeynaysan ilaahay halka niyada midaysan iyo halka gacan iyo halka ujeedo iyo maaragtaanay gacmahaas ilaahay halka ujeedo u wada taagan ilaahay ma dayici doono subxaanahu wa tacaala idan nabigu waxa uu sameeyo dhacay sallallahu alayhi wa ta'diib iyo tawjiih min Allah ilaahay ba waxa meesha uu khayrku ku jiro u jihaynay inaguna halka baan laga rabaa inaan uga dayano qodobka saddexaad marka labada qofood ay isu tagayaan oo hawshaas inta aad ka soo dhamaataan ee marka aad xaajadiina gudanaysaan billahi alaykum inta badan lama xasuustaa leeyahay laakiin faa'iidada ay leedahay nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam ducada in la akhristo adkaarta in la akhristo allahumma jannibna shaydaana wa jannib ash-shaydaana ma razaqtana ilaahu shaydaanka inaga fogay labadeena wixii aad naga dhex abuurtana shaydaanka fogay nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam markuu ehelkiisa u tagaado ducada akhristo oo labadooda dhexdooda maalin habeenka wiil canug laga qadaro yani in walad ka dhashay la qadaro shaydaan ma dhibi canugaas haddaan doonayno ilmo wanaagsan ee fitnada iyo fitanta shaydaan ka nabad gala oo ilmo hagaagsan oo adduunkiisa iyo aakhiradiisaba kulliibana aan doonayno habeenka jaanis baan haysanaa waxaad maqlaysaa ilmaha Soomaalidu waxay dhahaan ilmaha dhibka badan yani canugan dhib badan ma bisanka laga hilmaamo fiir yani waan ognahay habeenkaas muhiimada ay leedahay ilmaha dhibka badan oo macaanka gaahanba waxaan aaminsanahay ilmo bisankii laga soo tagay inay tahay oo habeenkaas aan ducadii iyo bisankii iyo sunnadii la rabo habeenkaas aan la soo fulin waa xaq runta ilmaheena ay nagu leeyihiin haddaan doonayno ilmo wanaagsan oo tarbiyadoodii tawjiihada ay noo fududaato hadhowti korintooda habeenkan jaaniskaas baan haysanaa nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam haddii ducada la akhristo allahumma jannibna shaydaana wa jannib ash-shaydaana ma razaqtana oo labadaas qofood dhexdooda ilaahay uu wax ka qadaro oo ilmo ka qadaro ilmaha shaydaan ma dhibi doono nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam idan nabiga calayhi salaatu wasalaam waa saadiqul masduuq waxa uu sheegayo boqolkiiba kumanaan ay run yihiin runtii oo aan maaragtaanay wax sheekay la geli karin idan saddexdaas qodob haddii aynu sameeyno intaanan labada qofood aysan isu iman hadday saddexdaas tallaabo ay ku dhaqaaqaan oo saddexdaas duco ay la yimaadaan oo sida ay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ula yimaadaan باذن الله الباري ilmaha ay dhali doonaan ilmo la kari way doono ma noqon doonaan ilmo wanaagsan oo barako iyo khayr hadii lacala ilmahaas
ay noqdaan ilmo wax ku jiraan oo ilmihii ilmo fasaadsan oo halaysan ay noqdaan. ogow xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam shaki kuma jira, ducadeennii iyo qaabkan inagu aan sunnadii ula nimid baa shaki ku jira. waa inaan ilmaha dambe ilmaha ka dambeeya waa inaan saxna. haddii aan wixii natiijadii aan rabna aan weyno, waa inaan inagu aan ducadii iyo qaabkii aan waxula imaanayna aan saxna maahana nabiga xadiiskiisa calayhi salaatu wasalaam war kuma jiro. haddii marka saddexdaa qodob la xaqiijiyo oo labadaa qofood intaanay isu iman ka hor ay saddexdaas qodob ay siday tahay ula yimaadaan, oo ay dhacdo habeenkaas biidni illaahi inay ilmo ay uur galaan, ilmaha uurjiifka ah uurka gala ilaa ay ka dhashaan maxay u baahan yihiin, wixii habeenkaa ka dambeeya oo hadday ilmuhu uur galaan wixii ka dambeeyda dadaalka iyo juhdiga la rabo 90% hooyo ayaa la wareegi doonta. oo wixii habeenkaa ka dambeeya shaqada loo baahan yahay iyo dadaalada loo baahan yahay oo dhan hooyo ay maaragtaan xaggeeda mari doonaan 90%. inta yacni aabbaha waxa saaran iska muraaqabayn iyo inuu maaragtaan hooyada caafimaadkooda iyo cuntadeeda iyo maaragtaan uu ilaaliyo xaaladda nololeed ay ku jirto, waxaas inuu ilaaliyo unba aabbaha saaran. ilaa marka dambe ilmuhu ay soo gaaraan dee ilmo wax maqlaya yacni la rabo in ilmihii ilmo nool oo wax maqlaya ay noqdaan, oo markaas dee qof kasta laga rabaa inay ku dadaasho ilmahaas waxa ay maqlayaan inay wax wanaagsan noqdaan. marka habeenkaas wixii ka dambeeyda tallaabooyinka ay tahay in la qaado ilaa ay ka dhashaan casharada dambe ku qaadanayna. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.